12 Oktoobar 1999 waa wakaaladaha wararku ay baahiyeen warar degdeg ah oo sheegaya inuu hogaamiye u ahaa inqilaabkii dhacay sarkaal gaashaanle ah kadib naftiisa uu ka dhigay madaxweynaha dalka Pakistan balse 20 sano kadib awoodiisu inay suushay waxa caddayn u noqotay in dil lagu xukumo kadib markii lagu eedeeyay gaboodfallo ay ugu horeyso inuu sameeyay khiyaano qoran waa kuma madaxweynaha Pakistan ee dilka lagu xukumay talaadadii haddayna dhaaftay 17 bisha 12 2019 koorinta aan Pakistan ku goyn India ay ku dhashay magaalada New Delhi 12 August 1943 waxaana iska dhalay Marwa Begum Sarin iyo dimuqraadiyahankii Zayd Musharrafuddin kadib qoyskiisu waxa ay u haajireen Pakistan waxay degeen Karachi halkaas oo Birfaas uu ka helay waxbarashadiisii ugu horeysay kadib wuxuu ku biiray ciidamada qalabka sida sanadkiisii 18 si uu u bilowdo dagaallo iyo caqabado badan oo ka gudbay kuwaasi oo dhaxalsiisay inuu helo darajooyinka sare ee ciidamada militariga ee dalkaasi Pakistan Musharraf Birfaas waxa uu ka qayb noqday laba dagaal oo ka dhan ah dalka Hindiya oo ku dhashay dagaalkii koowaad wuxuu la galay 1956 kaasi oo ka dhacay gobolka Punjab kii labaadna wuxuu la galay 1971 labadan dagaal ayuu ku yeeshay door wanaagsan kaasi oo geeysiiyay inuu ka dhaxelo ciidamada Pakistan ixtiraam iyo ka dambeyn waxana uu ku yeeshay shacbiyad badan guulaha uu ka gaaray dagaaladaasi sanadii 1998 waxqabadka ninkan militariga ah wuxuu gaaray heerkiisii ugu sareeyay waxana loo magacaabay taliyaha ciidamada Pakistan taas oo macnaheedu yahay inuu leeyahay karti uu kaga hortago India dariska iyo cadawga ugu dhow isla sanadkaas isagoo garab jooga ra'iisul wasaarihii waqtigaasi ee dalka Pakistan Nawaz Sharif waxa uu kormeeray tijaabo nukliyeerka ee dalka Pakistan ee guuleysatay si jawaab degdeg ah looga bixiyo India oo qaaday tallaabo la mid ah taas howlgalka nukliyeerka ee guuleystay ayaa sabab u noqday inuu kalsooni buuxda uu ka helo shacabka dalkiisa iyo sidoo kale madaxda ugu sarsareysa dalka waxaana uu helay dhiirigelino badan oo shacabka dalkiisu ay siinayeen si uu ugu jawaabo cadawga dariska ah kol kasta oo ay ka hadalsiiyaan madaafiicdooda kolna siyaasadda saameynteeda kama uusan maqnayn Musharraf waxaase uu awood dheeri ah u yeeshay inuu la mid noqdo saraakiisha dhigiisa ah ee ay madaafiicdu geeyaan kursiga ugu sarreeya ee dalka waa halka madaxtooyadu ay tiile 12 Oktoobar 1999 ra'iisul wasaaraha dalka ayaa shaqada ka joojiyay waxaana uu bixiyay amarro sheegaya in aanay diyaaradiisu ku soo degi karin garoonka Karachi laakiin saraakiisha ciidamadu waxay u ogolaadeen taliyahooda inuu soo dego isla markaana ciidanku waxa ay si degdeg ah ula wareegeen idaacadaha iyo telefishinada dalka iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay guriga ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidan ee shaqada laga caydiyay wuxuu kala wareegay awoodda dawladda la doortay ee uu madaxa ka ahaa Nawaz Sharif waxaana uu dadka kala hadlay telefishinka isagoo u ballan qaaday inuu Pakistan ka badbaadin doono burburka isla markaasina uu sugi doono amaankooda isagoo oo meel saari doona awoodda barbarka taal ee India Musharraf ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu doonayay inuu duqeeyo diyaaradiisa waxaana uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah waxaana uu markii dambe isku magacaabay madaxweynaha dalka isla markaasina uu sii ahaanayo hoggaanka ciidamada dalka waxa ay ahayd maalin cajiib ah sida dad badan ay ugu dabaaldegeen qabashada ciidamada ee talada dalka maalinka xigay sida caadada u ah diktaatooriyiinta generaalka sawirkiisa ayaa qabsaday bogagga hore ee wargeysyada dalka 2001 mucaaradka ayaa kala horyimid sharci ahaanshaha madaxdiisa waxayna sheegeen inuusan xaq u lahayn inuu shir la yeesho India oo uu ku matalo Pakistan Musharraf wuxuu kaga jawaabay qabashada afti dadweyne oo la qabtay bishii June ee isla sanadkaas taas oo siisay sharciga uu ku doonayay inuu noqdo madaxa dawladeed ee Pakistan si kastaba ha ahaatee sanadkaas waxa uu ahaa saraakiisha sarsare ee ciidamada dalka mid ku xun qaybtoodna waxa ay ka baxsadeen dalka kadib markii lagu eedeeyay in badan oo ka mid ah inay doonayeen inay afgambiyaan dawladda 12 September 2001 waxa kooxo ismiidaamayaal ahi oo badankoodu u dhashay dalka Sacuudigu ay weerareen labadii aqal ee matanaha ganacsiga dalka Mareykanka iyo Pentagonka Mareykanka iyagoo ku weeraray diyaarado ay afduubteen waxaana weerarkaasi uu sababay geerida in ka badan 3,000 oo qof kadib Mareykanku waxa uu go'aansaday inuu u jawaab celiyo Al-Qaacida
musharraf waxa uu ogolaaday inay adeegsadaan Mareykanku dhulka Pakistan si ay u weeraraan Taliban kadibna ay ugu duulaan Afghanistan iyo Iraq. marar badan ay dadka Pakistan ay mudaharaadyo ay uga soo horjeedaan in musharraf uu dhulkooda u ogolaado inay Mareykanku adeegsadaan ay sameeyeen, balse si degdeg ah ayuu musharraf isugu bedelay halyay ay jecel yihiin dadkiisu ilaa gacan yara Mareykanka u shaqeeya sida ay ku tilmaameen dad badan. 2002 ayuu mar kale sameeyay doorasho u muuqatay laba kacleyn uu awoodiisa ku xoojinayo, waxa uu ku tilmaamay doorasho furan oo khiyaano ka madax bannaan, laakiin xisbigiisa ayaa helay kuraasta ugu badan waxaana uu la wareegay guud ahaan xafiisyada dawladda. bishii Sebtembar 2005 wuxuu musharraf gacan qaaday ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee waqtigaas Aaron Sharon shirkii guud ee qaramada midoobay, taas oo dhalisay inay mar kale sameeyaan shacabka Pakistan kacdoono ay uga soo horjeedaan. masaajidka loo yaqaano masjidka Caas ee dalka Pakistan ayaa hoy u noqday codka mucaaradka ka soo horjeeda dawladda, waxaana ay xukuumaddu goordamba ay soo saartay in la dumiyo sabab la xiriira in laga dhisay dhul dawladdu ay leedahay. ciidamada amniga ayaa masaajidka hareereeyay muddo dheer, kadibna waxay weerareen sanadii 2007. dad badan ayaa la dilay laguna dhaawacay. Pakistanna waxay gashay qalalaasa siyaasadeed oo weyn waqti jacaylkii shacabka ee musharraf ay gaadhay heerkii ugu hooseysay. sanadkaas waxaa hogaamiyaha awoodda leh dhimbil laabtiisa ku noqday garsoore Ifkhar Jodare oo buriyay digrootooyin badan oo uu soo saaray, isla markaasna sharci darro aan dastuurka ogoleen ugu yeeray in la kala garan waayo awooddii maamul ee dalka iyo tii ciidanka oo isku gacan noqotay, waxaana uu isku dayay musharraf inuu xilka ka qaado. isla sanadkaas bishii labaad ayuu soo saaray digreeto uu xilka kaga qaaday garsooraha, balse guddiga sare ee cadaaladda dalka ayaa ka hor istaagay. kadib muran iyo dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu iscasilo, isla bishaas 24keedii waa February, guddiga doorashooyinka ee dalka Pakistan ayaa shaaciyay in musharraf loo doortay 5 sano oo dambe inuu madaxweyne ka sii ahaado Pakistan, balse ugu dambeyn bishii August 18keedii 2008 ayuu musharraf telefishinka ka sheegay inuu iscasilay. ugu dambeyn talaadadii hadda ee Nabaal martay ayaa lagu xukumay dil isaga oo ka baxsaday dalka kadib markii uu iscasilay. kalfadhiyo badan oo dacwo dhageysi ah oo ilaa hadda socday ayaa lagu soo saaray go'aankaas. waxa uu codeeyay go'aankaas 2 ka mid ah 3 garsoore ee qaadayay kiiskan.